waxaan salaamayaa baada saxaafadda degmooyinka igala jooga howlgalka caawa aan ka hayno halkan iyo nadaafadda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waaxda gaadiidka gobolka Banaadir oo ah laf-dhabarka ee ku shaqeyso gobolka Banaadir waana mashiinka kaliya ee dhaqaajiya wax kasta oo shaqada ay u baahan tahay waxaan kaga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Cumar Filish amarkii uu ina siiyay iyo sida uu noo amray inaan u fulinay shaqadii halkan caawa ka qabanay runtii magaaladani waxay u baahan tahay in dib loo soo celiyo bilicdii ay lahayd waagii berisamaadkii waxaan rajaynayaa in magaaladan isbedel dhow uu ku yimaado muddada ugu yar ee wax lagu qaban karo laakiin waa mar haddii aan helo bulsho Soomaaliyeed oo garab taagan oo siruna igala shaqeysa waxa aan qabanayo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka cid kastaba magaaladani waxaa ka saaran waajib waana inay waajibka ay leedahay fuliso ayna qaadataa si annaguna ay nagula xisaabtamaan meel nadiif ah laakiin haddii hooyada Soomaaliyeed ay laamiga xaqayso oo wiilka dhalinyarada Soomaaliyeed ee laamiga gaariga ku dhaqayo uusan ilaalinin xuquuqda ay leedahay hooyada Soomaaliyeed ee laamiga xaqaysa aad dhibaato weyn u tahay waa ognahay dhibaatada wadanka ka jirta burburka iyo dhaqaale xumada wadanka ka jirta wayna dhibaysaa dhalinyarada laamiga hareeraheeda gaadiidka ku dhaqayo wayna xanuujinaysaa annaga ka dareen ahaan maahan inaan nacabnahay marka aan leenahay waa in isbedel lagu sameeyo halka sababtoo ah hooyo Soomaaliyeedaas subaxda hore u soo jarmaada shaqo ka qabata halka haddii maanta nin dhalinyaro ah oo gaari wata uu yimaado oo wiil yar oo dhalinyaro ah oo sina duruufaha hay ugu faa'iideysto laamiga geeskiisa uu gaarigii ku dhaq magaalada bilicdeeda way dhumaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka ku nool gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa in ay nagala shaqeeyaan bilicda iyo nadaafadda magaaladan sababtoo hal qof waxba kama qaban karo maxaa yeelay magaaladu waxay u baahan tahay dad isku duuban dhammaantiin bahda saxaafadda iyo cid kastaba waxaan rajaynayaa inaad nagala qayb qaadataan sidii ay magaaladan bilicdeedii iyo nadaafadeedii u soo noqoleed mar haddii aad bilic maqashaan waxa soo galayo in dhirtii la beero laamiyadii darjiimooyinka la qurxiyo wax kasta soo galaysa cid kasta oo dhalinyaro ah iyo cid kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay magaaladan igala shaqeyso waana mahadsantiin